السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad sugtaanba waa qaybtii labaad ee qisada. qaybtaynii hore waxaan kusoo qaadanay odaygii caqliga badnaa, balse maantuna qisada aan idin wado ciwaankeedu waxa uu yahay faa'iidada ay leedahay akhrinta qur-aanka kariimka ah. qisadayna aan horay usii galno. oday baa jiray kaasoo akhrin jiray qur-aanka kariimka maalin walbo kala bar ama dhammaanba. odaygii wiilkiisii ayaa la yaabay aabihii oo maalin walba qur-aanka dhammaynaya miseba kala bar geynaya. markaas buu ku yidhi, aabe maxaa dhacay? qur-aanka maalin walba waad akhrinaysaa oo waxaad doonaysaa in aad xifdiso, mana aadna xifdin karto. aabihii ama odaygii ayaa waxa uu yidhi, wiilkaygiyo aniga ayaa kaaga sheekayn doona. waxaa jira saladan qaad. salad meesha u taala ayuu u tilmaamay. saladaas qaad oo ceelka biyaha aad, 3 garaafo biyo oo buubuuxda kusoo shub, ina keen iyadoo biyo ku jirto. wiilkii ayaa la yaabay aabihii waxa uu sheegayo sida salad biyo lagu soo qaadi karo. isagoo niyada saaka leh ayuu waalidka u ixtiraamayo amarkii fuliyey, uuna baxay sidii loo sheegay ayuuna sameeyey. markii uu biyo 3 garaafo kusoo shubay saladii ayaaba meeshii ay ku dhammaadeen biyihii. saladiio eber ah ayuu la soo laabtay. aabihii ayaa yidhi, wiilkaygiio aaway, wax biyaha kuma jiraan salada ee maxaa dhacay? wiilkii ayaa u sheegay, waxaa qabsaday 3 garaafo biyo markii aan ku shiway buu yidhi. wax biyo ah kuma soo harin saladii aabe. aabihii baa yidhi, mar labaad bax bal wiilkay, laga yaabo inaad ku keento wax biyo ah inay salada kusoo haraan. wiilkii baa baxay mar labaad, sidii oo kale buu soo sameeyey, balse wax natiijo ah kama uusan soo faa-iidin oo sidii oo kale ayay noqotay. markii uu imaaday buu haddana aabihii yidhi, waa maxay? saladu waa eber, haddana wax biyo ah kuma jiraan. wiilkii baa yidhi, aabbo sidii oo kale ayay noqotay. aabihii ayaa yidhi, aabbow markan ugu dambaysa bax bal soo fiiri, wax biyo ah inay ku haraan, laga yaabo markaan. wiilkii ayaa baxay, sidii oo kale ayuu sameeyey. 3 garaafo biyo ah ayuu kusoo shubay. isla meeshiiba ayay ku dhammaadeen biyihii. saladiio eber ah ayuu lasoo laabtay. aabihii baa yidhi, haye wax biyo ah ma keentay? wiilkii baa yidhi, maya aabbo, waatan salada iyadoo eber ah. wiilkii baa yidhi, aabbo mar afraad ma baxa oo ma soo fiiriyaa, ma laga yaabaa in ay wax biyo ah ay salada soo qaadaan? aabihii baa yidhi, maya wiilkaygiyo, haddii aad 100 jeer xataa baxdo wax tifiq biyo xataa kuma keeni kartid salada, waayo salada waa ay duleeshaa, wax lagu shubo waa ay sii baxayaan hadday yihiin wax dareero ah. wiilkii baa yidhi, haye aabbo hadda maxaan sameeyaa? aabihii baa yidhi, waxba ha sameyn ee salada fiiri sida ay noqotay iyo sida markii hore ay ahayd. hadda waa sidee, horeyna sidee ahayd. wiilkii baa yidhi, aabbow salada hadda waa nadiif, markii horena wasaq bay lahayd. odaygii ama aabihii ayaa yidhi, haddaba qur-aanka kariimka qalbiga sidaas ayuu ku sameeyaa. markii aad akhriso qalbigaaga waa uu nadiifmaa, nadiif ayuu ka dhigaa qur-aanka oo waa uu dhaqaa. sidaas ayaan u akhriyaa qur-aanka. wiilkii ayaa fahmay arrinka. uu aabihii qur-aanka mar walba u akhrinayo kalabar ama dhammaan. markaas buu ku yidhi, aabbow iga raali noqo, waan qaldamay oo iga raali noqo, si qaldan baan wax u fahmay. odaygii baa yidhi, maya wiilkaygiyo, fikradaada ayaad ka hadashay laakiin hadeer ma fahantay sababta aan qur-aanka u akhriyo? wiilkii baa yidhi, ha aabbo, hadda waan ku fahmay sababta aad qur-aanka u akhriso. qisadan intaas ayay noogu eg tahay. waa maxay faa-iidada ay qisadu leedahay? qisada faa-iidooyin fara badan aan la soo koobi karin ayaa ku jiraan.
in waalidka wax walba uu ku dhaho aad ka amar qaadataa, xitaa wax aan suurtagelin haddaysan ahayn. waayo waad u jeeday wiilka markii la amraayay sida uu u qaatay, waana wax aan suurtagal ahayn sida aad fahmi karto. 2 akhrinta qur-aanka kariimka waa in aad mar walba badisaa, si kastaa kugu qaadato waa in aad akhrisaa qur-aanka kariimka. waayo 3 maalin qofkii aanan qur-aanka akhrin aanan taawin, qofkaas wuxuu la mid yahay qof gal ah. waayo qur-aanka kariimka ah wuxuu ka hadlayaa arrimooyin fara badan aan la soo koobi karin, ajir fara badanna leh. waayo nabiga xadiis laga wariyay ay warinaysay Caaisha radiyallahu canha wa ardaa, waxay tiri qofka qur-aanka akhrinaya kan shigshigaya oo la gafgafaya qur-aanka ajir buu leeyahay. kan xaafidul qur-aanka ee dusha ka shubayana kaasi wuxuu la mid yahay malaa'igta kiraamin barara la yiraahdo. xadiiskaasi waa xadiis saxiix ah. qur-aanka labadaba ma aadan qasaarin, oo haddii aad shigshig ku akhriso ma aadan qasaarin, haddii aad si taf ah ku akhrisana ma aadan qasaarin. qisadan intaas aynagu akaato. anigu waxaan nahay caaqil yacko, adinku waxaad tihiin daawadayaasha, dhagaystayaasha. haddii ay qisadan kugu cusub tahay subscribe saar, haddaysan kugu cusbayn like. mahadsanid.